muuqaalkan isaga ah waxaan kugu bari doonaa applicationadii aan ugu isticmaalka badnaa 2021 hadda aynu sii dhamaynayno haddii aad daawanaysid hadda way waxa aan ugu talagalay inaan bal wax ka mid ah technology iyo adeegsiga applicationada aan kaga warramo muuqaalkan isaga ah waxa uu khuseeyaa applicationadii ugu muhiimsanaa aan ugu isticmaalka badnaa sanadkii imika naga sii dhamaanay 2021 waxaan rajeynayaa adigana inuu si fiican wax badan ku tari doono ka faa'iideysi fiican waa marka ugu horeeyay applicationadan hadda aan kaga warramayo waxa aan ku doortay waa marka koobaad waa qaar fudud cid waliba isticmaali karto qofka ingiriisiga ugu fudud yaqaana si fiican ayaa uu isticmaali karaa waxa aan ku doortay oo kuwa kale aan uga soo dhex soocay applicationadani waa applicationo furan marka aan leeyahay waxa af ingiriisi loo yaqaan synchronization applicationadan markaan ku leeyahay waa applicationo furan SignKing ayaa loo yaqaanay waxa loo jeedaa waa application aad ku isticmaali kartid mobilkaaga laptopkaaga aad ku isticmaali kartid computerkaaga tablet haddaad haysato iyo agab kasta oo smart ah waad ku isticmaali kartaa applicationadan waxa aan ku doortay isla sidoo kale applicationada badankoodu wada free oo aan wax lacag ah haba yaraatay laga qaadin waxaan ku doortay businesska iyo hawlaha aan qabto haddii macalinimo ay tahay iyo haddii hawlo kale ay tahayba wax badan bay iga saaciday adiguna marka waxa suurtagal in wax badan ka saacidi kara ku soo dhaw si fiican u dhigo ugana faa'iideyso haddii Ilaahay dhaado kow application-ka ugu horeeya ee aan aad u bogaadiyo aan oran karo xataa waxaan isticmaalayay 5 sano ee ugu dambeeyay laga soo bilaabo 2016 mala 2021 waa 5 sano waa ka application loo yaqaano Google Keep shirkadda Google ayaa iska leh waxa loogu talagalay in wax walba uu ku qabto si guud ahaan application yaro furan waa sida note-ka oo kale wax lagu qorqorto marka halkii aad mar walba buug aad istabasidi lahayd mar walba wixii aad sleedood ilaabisa aad buug ku qoran lahayd ayuu ku bedelay mobilkaaga aad ku qoranaysaa waxaad u isticmaali kartaa haddii aad sleeday wax baad ilaabi doontaa waxaad u isticmaalaysaa haddii doonaysaa wax ku save garaysato waxaad u isticmaali kartaa hawl aad maanta leedahay ha ku xasuusiyo uu ku qabanay waxyaalo fara badan ayuu qaban karaa inuu insha Allah ta'ala hadii waqtigu noo saamaxo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo ogolaado waxaan rajaynayaa mar muuqaal dhameystiran aan ka sameeyo marka kaasi wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee Google Keep waxaan u isticmaali jiray tiraba sida ay u badan tahay laba arrin inaan wax ku qorto fikradaha kala duwan ee soo dhacay arrimaha mar walba isleey samee laba iyo waxyaalaha loo yaqaan organizing inaan kala habeeyo arrimaha aan leeyahay tusaalahan kale hadii aan course doonay inaan sameeyo hadii aan doonay business kale hadii aan doonay hawlo kala qabto ayuu iga caawiyo organizing ama habeynta iyo isku dabaridka sida ay inta badan de shaqadiisu ay tahay anu gudbo application-ka labaad ee aan ugu isticmaalka badnaa sanadkii imkaan ku jirnay application-kaas waa application ilaa xad wax loo dhigaa ma jirto waxaan oran karaa waa ka ugu muhiimsan agtayda application-ka waxa loo yaqaan Telegram waa application dadka in yar ay ka taqaan isticmaalkiisa waxaan ku jeclaaday oo kaga duway applicationada kale waa application mar walba laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa mar walba waxba lagu kordhinaya bil walba update ba ku socda marka application maaha meel yurura maaha application يعني شنتي سنة يقدم بي إسكوسيلو استعمال سida WhatsApp كو kale wax badan aan iska bedelin kani application mar walba ay kordhiyaan marka hadaad si fiican uga faa'iideysan karto waa wax yani wadahab oo kale wadahab hada shay weey wuxuu inta dheereeyay waa free wax lacagana male adigu shakhsiyan waxaad ku isticmaali kartaa waxyaalo badan waxaad ku isticmaali kartaa inaad ku save garaysato fiidiyoyadaada inaad ku save garaysato sawiradaada inaad ku save garaysato wax kasta oo sleeday ka lumaya waana wax maskaxdiisu ay furan tahay bimaana storage-ka iyo qaadistiisu ay ballaarantahay waxaad ku shuban kartaa wax alla li waxaad jeceshahay marnaba ka istaagi maayo marka application-kaasi waa application-ka ugu muhiimsan agtayda aan rajaynayna wax badan inuu ii kordhiyay aan kana faa'iideeyo waxaan inta badan u isticmaalaa inaan wax ku save garaysto waxaan inta badan u isticmaalaa inaan kula xidhiidho dadweynaha qaar waxaan inta badan u isticmaalaa inaan wax ku baro ardayda waana shaqada ugu badan inta badan aan ku qabto waxaan ku isticmaalaa in waxa weeye mararka qaar aan waxa weeye aan ku soo gudbiyo waxaan doonayo in dadku soo download gareystaan marka يعني وكايغو بدن wana xisaab badanahay adiguna waxaan rajaynayaa hadii aad dhex gasho caalamka isaga ah in caalamka Telegram inaad wax badan aad ka faa'iideyso hadii Ilaahay dhaaf yaana ku raagin anu gudbo ka saddexaad application-ka saddexaad waa application aan kii hore waxba ka duwaneyn waxa loo yaqaan WhatsApp business WhatsApp-ka in badan dadku way yaqaanaan qof Soomaali garanayna ma jirto oo de mobilka laab salaax isticmaala laba hadaba kala jiro WhatsApp mid waxa loo yaqaan WhatsApp business midna waxa loo yaqaan WhatsApp caadiga WhatsApp Messenger WhatsApp business ku ka duwan waxa lagu talagalay dadka ganacsatada dadka wax ka iibiya dadka hawla wada dadkaas loogu talagalay
marka waa application aad faa'iidadiisu u badan tahay inuu hadii fikrad ganacsi aad leedahay bilow inuu hadda leedahay ganacsi bilow waxa muhiim inaad WhatsApp business ka isticmaashid anad wax kale aanad isticmaal hadda laakiin qof caadi ah tahay rajayn ma in wax badan uu kaga duwanaan karo kii hore ee caadiga waxa loogu talagalay si magaciisa ka muuqata WhatsApp business waa dad iyaga ganacsatada ah ayaa loogu talagalay aan u gudbo application-ka ugu dambeeya ee isaguna aad u muhiimka sanadkana aan aad u isticmaalay application-ka waxa loo yaqaan Notion-ku waxa loogu talagalay waa application sal ballaaran hawlo badan qabta kuma koobna uun wax lagu qorqoro waxa weeye aan inta badan aan u isticmaalaa waa Notion-ka inaan wax ku qoro blogging wax loo yaqaan inaan wax ku qoro qormooyinka inaan ku qorto waxaan inta badan aan u isticmaalaa goal setting markaan doonay inaan hadaf aan dejisto hadafkaana aan xaqiijiyo si fiican buu iga saacidaa mobilkayga kala soconaya maxaa maanta qabsoomay halkii aan ku socday maxaa inteen jira mashruuca isaga ah markii aan waxa weeye bilaabay halkeen hadda marinaya hawlahaana uu iga caawiyaa wuxuu inta badan iga caawiyaa Allahumma salli ala Muhammad hadii aad doonayso inaad caado daba gasho dhaqanka akhriskeena yeelato kala doonaysa application kan si fiican buu kaaga caawinaya maalin walba hawshii inuu ku diro uu ku xasuusiyo in hawshii aad qabatay marka waxaan oran karaa waa application la isku soo ururiyay oo loogu talagalay inuu wax walba uu qabto qofka kaas oo noloshiisa ganacsigiisa Allahumma salli ala Muhammad aqoontiisa akhriskiisa wax walba uu ku maaraynay marka waxa application salbalaad halka waxaan kugu soo gudbiyay tiraba 4 application oo sanadkan imkaan ku jirnay aad iyo aad aan u isticmaalay waxaan rajaynayaa si fiican aad uga faa'iideysatay wax badan ay ku kordhiyeen muuqaalo dambana hadii Ilaahay uu noo golaado waxa suurtagal ah inaan ka diyaariyo muuqaalo aan faahfaahinayo isticmaalka application-nada iyada. Assalamu alaykum.